Ruushka waa mid ka mid ah dawladaha adduunka ugu weyn uguna xooggan, balse waxaa jira xaqiiqooyin aad u fara badan oo la yaab leh oo ku duugan dalkaas. Qaarkood waa kuwo murugo leh, qaarkoodna waa kuwo wanaagsan. Waxyaabo badan oo la yaab leh ayaa ka dhaca Ruushka. Qisada aan maanta idiin soo gudbinayno waxay ka dhacday Ruushka. Qoys ka kooban hooyo, aabbo iyo 2 carruur ah ayaa waxay deganaayeen degmo yar oo ka tirsan Ruushka una dhow magaalada Kazan. Aabbaha qoyskan waxa uu ahaa mid ku dayasho mudan oo si aad ah u jecel carruurtiisa iyo xaaskiisa. Ma ahayn mid casabi ah, xanaaq badan, sidoo kale ma ahayn mid waqtigiisa ku bixiya la joogista saaxiibada xunxun, sidoo kale ma ahayn mid caba khamriga. Hooyada guriga waxay ahayd mid ixtiraam badan, una wanaagsan carruurteeda labada ah iyo saygeeda. Kaliya ma ahayn mid ku wanaagsan guriga ee sidoo kale waxay ahayd mid insaaniyad wanaagsan, deriskeedana ay aad u jecel yihiin, waxayna had iyo jeer kaalmayn jirtay kuwa u baahan. Waxaa laga yaabaa in dareenkeeda ku aadan in ay had iyo jeer kaalmayso kuwa u baahan ay sabab u ahayd in ay saygeeda nolosha ay u doorato nin ka tirsan booliska magaalada Kazan. Inkastoo saygeeda uu ahaa mid ka shaqeeya dhanka amniga oo uu maalinkii oo dhan la soo macaamilo shakhsiyaad loo soo qabtay dambiyo kala duwan, haddana taas saameyn kuma yeelan qoyskiisa. Wuxuuna ahaa mid si degan oo naxariis badan ula dhaqma. Waxa uu soo toosi jiray waqti hore subaxdii, wuxuuna toos u aadi jiray goobta shaqada oo degmada uu deganaa ka fogeyd 25 kiiloomitir. Qoyskan waxay ku noolaayeen nolol aad u degan oo wanaagsan, balse waxay xaaladda isbedeshay markii uu saygii haweenaydan laguna magacaabo Yurushef uu maalin uu fasax ahaa, isla markaasna uusan lahayn wax shaqo ah, uu subax hore u kalahay dhankaas iyo hawdka. Laakiin su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay, maxaa Yurushef ku kalifay in uu kaymaha u kalaho isagoon wax shaqo ah lahayn? Taas waxay shaki iyo isla hadal gelisay xaaskiisii wanaagsaneed, waxayna subaxaha ka mid ah weydiisay waxa uu hawdka ka doono maalinka uu fasaxa yahay. Wuxuuna ku qanciyey inaysan ka walwalin mawduucaas, wax dhib ahna uusan jirin. Intaas kadib xaaskiisa way ku qanacday, waxayna u muujisay kalsooni, balse Yurushef waxa uu sii watay in maalinka uu fasaxa ka yahay shaqada uu subax hore aado hawdka, halkaasna uu muddo ku soo maqnaado. Maalin maalmaha ka mid ah, Yurushef xaaskiisa xilli ay la sheekaysanaysay saaxiibteed ugana sheekaysay sheekada saygeeda iyo in uu maalmaha fasaxa hawdka aado, ayaa saaxiibtii waxay kula talisay inay dabagal ku samayso oo ay bannaanka keento waxa uu hawdka ka doono, iyadoona u sii daba dhigtay in laga yaabo in uu khiyaanayo oo uu hawdka haweenay kale kula kulmo. Xaaskii Yurushef waxay bilowday in ay ka fikirto waxyaabihii ay saaxiibteed ku soo dhahday, balse waxaa isku qaban weysay dabeecadaha iyo daacadnimada ay sannadaha badan ku soo baratay saygeeda iyo in uu naag kale la wado. Waxay fikirtaba waxay sugtay ilaa laga gaaray maalinkii uu fasaxa ahaa ee uu hawdka aadi jiray si ay u dabagasho una soo ogaato waxa uu halkaas ka doono. Ugu dambeyn waxaa la soo gaaray maalinkii waxay maqashay saygeedii oo subax hore toosay, halka iyaduna ay quraac siinaysay labadeeda carruurta ah. Markii uu soo kacay soona cadaystay waxa uu soo maray iyada iyo carruurteedii, waxa uuna u sheegay in uusan quraacanayn oo uu doonayo in uu hawdka aado. Iyadoo u dhowlo cadaynaysa ayay madaxa u ruxday, waxayna ku tiri, waan ku sugayaa ee sama ku soo laabo. Markii ay maqashay albaabka qabtiisa oo uu baxay, waxay soo xasuusatay hadalkii ay dhahday saaxiibteed. Waxay carruurteeda u sheegtay in ay si dhaqsi ah ugu soo laabanayso. Intaas kadib way baxday, waxayna daba dhigatay saygeeda iyadoon isdareensiin. Waxay kala socotay sheedda sare ilaa uu ka mirqay ama ku mirqay geedaha hawdka dhexdooda. Waxay ogeyd in tallaabo walbo ay qaado ay ku xambaarayso caadifada iyo masayrka, isla markaasna waxay diyaar u ahayd in ay qaabisho wax walbo ay kala kulanto dabagalka saygeeda. Waxay aaminsanayd in hawdka dhexdiisa ay ka soo bixi doonto haweenay kale, saygeedana uu halkaas kula kulmo. Balse maxaa dhacay? Saygeeda Yurushef ee ay ka shakisay markii uu bartanka ka marayo hawdka ayuu istaagay meel barxad ah oo bannaan, geedo badan ku hareeraysan yihiin. Si la yaab leh ayuu samada sare u fiiriyey, wuxuuna bilaabay in uu u qayliyo sidii xayawaanada oo kale. Ilaa iyo 10 daqiiqo ayuu sidaas u qaylinayay. Ma jirin wax kale oo uu sameynayay, kaliya waxa uu ahaa mid qaylinayay.
xaaskiisii waxay fahmi weysay ujeeddada uu saygeeda u qaylinayo. way rumaysan waayeen waxa ay indhaheedu arkeen. waxay nafteeda isweydiisay in uu waashay in kale. intaas kadib waxay u degdegtay guriga ka hor inta uusan saygeeda ogaan in ay dabagal ku haysay. Yurshef waxa uu ku soo laabtay guriga isagoo gacanta ku wada ubax gaduudan, aadna u faraxsan. kadibna waa uu guddoonsiiyey xaaskiisa hab ayuuna siiyey. waxay fahmi weysay ama fasiraad u weysay dabeecadaha uu la soo baxay saygeeda. intaas kadib waxay go'aansatay inay arrinta kala fadhiisato oo ay weydiiso si ay u ogaato sirta ka dambaysa qaylidiisa hawdka. maalin maalmaha ka mid ah markii uu Yurshef ka soo laabtay shaqada, waxay xaaskiisa u sheegtay wixii ay samaysay iyo in ay dabagal ku samaysay oo ay ka shakisay. sidoo kale waxay u sheegtay in ay daawanaysay markii uu sida xayawaanka oo kale u qaylinayay. Yurshef cabaar ayuu fiirinayay xaaskiisa isagoo la yaaban, balse ugu dambeyn waxa uu sheegay xaqiiqada, waxaana uu ku yiri sida tan: xaaskaygii sharafta lahaydey, qaylida aan qaylinayay waxaan isaga yareeyaa mushkiladda i haysata ee aan ka soo dhaxlo hawshayda ama shaqada. taasna waa waddada kaliya aan isaga soo qafiifayo mushkiladaha iyo dhibaatooyinka. ma doonayo in aan guriga ku soo laabto ama kula soo laabto dhibaatooyinkaas adiga iyo carruurta. sidaas darteed ayaan hawdka u aadaa iskagana soo qafiifiyaa dhibaatada i haysata. markii uu xaqiiqada u sheegay xaaskiisa, waxay noqotay mid ka shalaysa ficilkii ay samaysay iyo in ay ka shakisay saygeeda daacadda ahaa. saygeedii diiday in uu iyada iyo carruurteeda kula soo laabto dhibaatooyinka uu kala soo kulmo shaqada. waxay uga cudur daaratay inay ka shakisay dabagalna ku samaysay. qisada qoyskan ayaa ku faaftay baraha bulshada waddanka Ruushka, waxaana markii koowaad soo daabacday oo bulshada la wadaagtay xaaska Yurshef. waxayna qiratay in markii ay xaqiiqada ogaatay nolosheeda isbedeshay 180 darajo. waxay sheegtay in sababta ay qisadeeda dadka ula wadaagtay ay tahay in ay darsi u noqoto lamaanayaasha kala shakiya. waxay sheegtay in wixii markaas ka dambeeyey aysan mar dambe weligeed ka shakin saygeeda, ayna aamintay 100%. mararka qaar waxaan luminaa ashqaas qaali ku ah nolosheena, taasoo ka dhalata kalsooni darrada iyo shakiga. haddaba daawade, inta aadan dhibaato ama stress ku haysta aadan u lumin shakhsi qaali kugu ah, raadi xal kale. maadaama annaga aan nahay dad muslim ah, waxaad dhibka isaga yarayn kartaa adigoo dukada 2 ragco oo sunno ah. haddii aad ka heshay muuqaalkan, like saar lana sii wadaag asxaabtaada. mahadsanid.